dulucda filimka genre, horror thriller, slasher, laakiin goor dambe qiimayn, 2 sheeko, 4 saaxiib oo u safra qolkaynta ku yaala, balse safarkoodu wuxuu isu beddelaa musiibo markii dilaa weji xiran ku soo duulo. Dhibaatooyinka filimka hororka wuxuu bilaabmaa goor dambe. Qaybta saddexaad ee filimka, inta badan wakhtiga waxaa lagu bixiyaa drama iyo saamaynta influencers, halkii laga dhisi lahaa cabsi iyo xiisad. Hidigaha filim sameeyayaasha Rosemary Idisi. Hidigta filimka waxay ku guulaysatay tartanka Studios Greenlight Nikki Kos, agaasimaha filimka, horey uga soo muuqday Sprouts Guidato Tesombe Abo Alibse, Alexa Gartster, kore cusub. Filimkani waa qoraalkeedii labaad, fikrad wanaagsan, fulinta liidata mawduuca ku saabsan influencers iyo baraha bulshada waa xiiso leh, balse filimku ma buuxinayo ballanqaaska horror slasher, wuxuuna u muuqdaa mid aan si fiican loo dhisin. Filimkan wuxuu leeyahay mawduuc xiiso leh, balse fulinta iyo dhismaha sheekada ayaa ka dhigaya mid niyad jab leh. Waxaa laga daawan karaa Tubi laga bilaabo Oktoobar 24, 2025.